sargaal ka mid ah ciidanka China ayaa wuxuu soo aaday New York City meeshaasna wuxuu ka aasaasay shabakad koox tuuga ah oo xadda gaariyaasha. They do so quickly and they do so quietly and they get away with it. Anti-theft devices they had a defeat, they had a plan. kiiska xadista gaariyaasha badanaa boolisku way u sahlan tahay waxay gacanta ku soo dhigaan gaariga ama waxay soo helaan qayb ka mid ah gaariga oo la furfuray ninkan gaariyaasha uu xado booliska gacanta kuma dhigaan wax cadeen ah kama tago oo qaab nashqadaysan ayuu u xadaa gaariyaasha haddaba su'aasha maxaa ka keenay ninkan China waa maxay sababta ka dambaysa askari Chinese ah inuu gaariyaasha ka xado Mareykanka waliba New York City waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idilna meel walba u joogtaan soo dhawaada muuqaalkeena waxaan uga hadlaynaa xatooyadii gaariyaasha tii abid ugu saameynta badneed taariikhda Mareykanka New York City waxay ka mid tahay caasimadaha ugu qanisan dunida uguna mashquulka badan bilyaneerada caalamka badanaa waxay ku nool yihiin caasimadan laakiin waxaa hal mar magaalada sidan u mashquulka badan ka bilowday xatooyada gaariyaasha tii abid ugu saameynta badneed asbuuc walba booliska waxay diiwaan galiyaan ilaa 50 gaari oo la xaday su'aasha booliska ay isweydiiyaan gaariyaashan xagee la geeyaa maxaa lagu sameeyaa waa kuma qofka ka dambeeya xatooyada gaariyaashan. Now the question was, where were they going? We learned that a number of the owners of these vehicles had easy pass in their vehicle. Min Jin Yang sargaal Chinese ah waa mastermind-ka ama maskaxda ka dambayso xatooyada gaariyaashan intii uu joogay China wuxuu u safray magaalada Shanghai magaalo qani ah dadkeedana ay aad u jecel yihiin wadashada gaariyaasha qaaliga ah waliba kuwa raaxada laakiin China beeca gaariyaasha aad ay qaali u yihiin oo dad yar oo kaliya ayaa awoodo ninkan lagu magacaabo Min Jin meeshas ayaa fursad uga soo baxday wuxuuna ku fakaray ka ganacsiga gaariyaasha koox gaangis ah oo magaalada haysatay ayuu la heshiiyay wuxuuna u sheegay inuu yahay sargaal ciidan wuxuu u soo bandhigay heshiiskan ka ganacsiga gaariyaasha in dibadda oo gaariyaal qaali ah ka keeno ayagana ay dib u sii iibiyaan meeshaasna faa'iidada ay kala qaybsadaan gaari qiimihiisa joogo $60,000 ayaa China uga dhex iibinayaan $120,000 meeshaasna faa'iido aad u weyn ayaa ku jirto hogaamiyihii gaangiskana uu ku qancay heshiiskan Min Jingna wuxuu dalbaday lacag $500,000 ah in la siiyo si uu shaqada ugu sii bilaabo Mareykanka ayuu soo aaday wuxuuna ku soo galay warqado fake ah asagoo soo sameystay sharciyo been ah wuxuu la baxay magaca Kenny dadka ayuu dhex galay shaqo part-time ah ayuu bilaabay wuxuuna soo iibsaday gaari duug ah oo Nissan ah si uu iskaga dhigo qof caadi ah oo dhexdhexaad ah si uu dadka attention-kooda u soo jiidan ama aysan u malayn dadka inuu lacag haysto laakiin waxaa la socday oo America la soo galay nin lagu magacaabo Boy Chow oo ahaa gacan yarihiisa waxay hadda toos u bilaabayaan fulinta qorshahooda koowaad oo ka bilaabanayso inay kireystaan warehouse ama bakhaar laakiin waxaa shardi ah in warehouse-kaas uusan ka ag dhaweyn xarun boolis sidoo kalena uu ku yaalo goob jawigeedu uu aad u degan yahay muddo asbuuc ah oo ay baadigoobayeen ugu dambeyntii way soo heleen. It was important to find a warehouse as quickly as possible. But the warehouse had to be just right because A, it had to be away from a police station. B, it had to be on the quiet side. C, it had to be in a place that was not going to attract attention. shirkad cuntada ka shaqeysa magaceeda oo feeg ah ayaa sameysteen bokosyada raashinkana waxay dhigeen albaabka hore ee warehouse-ka si meesha loogu ekeysiiyo in cunto lagu iibiyo qorshaha xigana wuxuu noqday wado walba oo warehouse-ka soo gasho waxay ku dhajiyeen kaamirooyinka CCTV-da si loola socdo dhaqdhaqaaqa wadooyinka warehouse-ka soo galo wuxuu shaqaaleysiiyay dhalinyaro dhammaantood wada Chinese ah oo ka shaqeysa gudaha warehouse-ka wuxuuna ka soo kaxaystay geerishada kala duwan ee magaalada isagoo u ballan qaaday lacagta ee meelahaas kaga shaqeynayeen laba jibaarkooda siin doono haddana waxaa la gaaray waqtiga ay bilaabi lahaayeen xadista gaariyaasha laakiin Min Chang weligii gaari ma uusan xadin wax fikrad ahna kama haysto wuxuu u baahday inuu shaqaaleysiiyo qof expert ku ah hawshan asagoo booqanayo garaash walbo lana kulmaya dad kala duwan si uu ogala soo dhaxbaxo qof hawshaas u qabto ugu dambeyntiina wuxuu soo helay ninkan lagu magacaabo Dean. He just wanted me to deal with the car thieves then I deal with him. xabsi 15 sano ah ayuu ka soo baxay waana tuug hawshan si fiican u fahansan Min Chang wuxuu Dean ka codsaday inuu la shaqeeyo oo na siinayo lacag uu aad ugu qanco qorshaha iyo waxa uu damacsan yahay ayuu la wadaagay Dean hawshan uu ka aqbalay Dean hadda shaqo ayaa looga fadhiyaa ama asaga gacantiisa ku soo xada gaariyaasha ama dad ha shaqaaleysiiyo wuxuu la kulmay saaxiib ay aad iskugu fiicnaayeen oo lagu magacaabo Lopez waa tuug xirfadeysan oo internetka wax ku dhaco laakiin saaxiibkiis ayaa u soo bandhigay shaqadan xatooyada gaariyaasha wuxuu u sheegay shaqadooda kaliya inay noqonayso
samayso inay inta gaari soo xadaan ninkan Janice-ka u keenaan meeshaasna lacag fara badan ay ka helayaan Dean iyo Lopez waxay shaqaaleysiiyeen koox dhalinyaro ah kooxdaas oo gaariyaasha soo kaxeen doono ama ay u adeegsan doonaan darawalnimada qorshaha gaariyaasha lagu soo xadayo sidan ayay u habeeyeen gaariga ay soo sahminayaan kadibna Lopez ayaa shaqada koowaad qabanayo gaariga ayuu jabsanayaa oo gudaha ayuu u galayaa matoorka ayuuna programinayaa asagoo laptopkiisa ku xiriirinayo markuu gaariga shido ayuu iskaga soo baxayaa waxa gaariga soo galaya oo kaxeenayo dhalinyarada la shaqaaleysiiyay mid kamid ah wuxuu gaariga geenayaa meel lagu la ballamay Lopez ayaa dib ugu soo laabanaya gaariga scan ayuu ku sameynayaa wuxuuna ka bixinayaa GPS-ka si aysan hadhow booliska u soo dabagelin ama qofka gaariga lahaa uusan u ogaan gaariga meesha uu yaalo goobtaas gaariga GPS-ka looga bixiyay ayaa laga soo kaxeenayaa waxaana lagu baakimayaa meel kale meeshaas ayuu oolayaa gaariga muddo 2 maalin ah markay ogaadaan in gaarigan uusan booliska soo dabageleynin waxa soo kaxeenaya gaariga Dean wuxuuna geenayaa warehouse-ka laakiin inta uusan warehouse-ka keenin wuxuu ku soo wareeganayaa dhammaan wadooyinka warehouse-ka soo galo si uu ogaado in gaarigan la soo daba socday in kale Min Ching asagana wuxuu kontroolayaa kaamirooyinkii uu ku xiray dhammaan wadooyinka soo gala warehouse-ka si loo hubiyo in gaarigaas aysan cidna soo dabagelin markaas kadib ayaa gudaha warehouse-ka gaariga la keenayaa haddaba shaqadan sida ay ku socoto waa shabakad koox isku xiran booliskana wax cadeen ama aysan helin waxay beegsanayaan oo gaariyaasha ay ka soo xadayaan moolasha baakimada xaafadaha garaashyada ilaa muddo 4 sano ah oo ay sidan ku wadeen shaqadan Min Ching wuxuu ka sameeyay lacag dhan $50 milyan dhinaca kale Min Ching aad ayuu isku ilaaliyaa oo wax cadeen ah kama tago kooxdan u shaqeyso oo gaariyaasha soo xado kaliya wuxuu kala hadlaa ama ay iska yaqaanaan ninkan uu shaqaaleysiiyay ee lagu magacaabo Dean waxa u shaqeeyo saaxiibkiis Lopez oo gaariyaasha u programyo iskaana ugu sameeyo si GPS-ka uu uga bixiyo sidoo kale Lopez ayagana waxa hoos imaado dhalinyaro ayaga ka kooban 6 ilaa 7 qof oo gaariga marka la soo xado oo la programyo kadib soo kaxeenaya gaariga meesha lagu balamiyana gaariga geenayo meeshaas waxa ka soo kaxeenaya gaariga Dean oo kaliya wuxuuna geenayaa gudaha warehouse-ka furayaal cusub ayaa gaariga loo sameeynaya oo waxa loo ekeysiinayaa gaari cusub oo brand new ah intaas kadibna waa la shiib gareynayaa oo waxa la saarayaa gaariyaasha taraagyo waaweyn oo loo diyaariyay waxaana toos loo geenayaa New Jersey meeshaasna waxa laga sii saarayaa tareen iskaga kala gudbo dhammaan gudaha wadanka Mareykanka ilaa uu ka taga California markuu tareenkaas California tago ayaa laga dejinayaa waxaana la saarayaa markab u socda China sidaas ay shaqadooda ku wateen ayagoo aanan laga shakin Min Ching wuxuu u sheegay Dean inay hadda u baahan yihiin gaariyaasha cusub waliba modelka ugu dambeeyay waxayna hadda toos uga heli karaan dealershibyada iyo goobaha gaariyaasha cusub lagu iibiyo Dean wuxuu aaday dealership asagoo iska dhigaya inuu gadanayo gaari marka uu qofka gaariga gadanayo furaha ayaa loo dhiibaa una iska tijaabiyaa Dean sidaas ayuu sameeyay furaha ayaa loo soo bixiyay gaariga ayuu galay waa uu fiiriyay isla markaana uu iskaga soo tagay meesha habeenkii marka la gaaray ayuu ku soo laabtay dealershipkii waxa la socday habeenkaas saaxiibkiis Lopez iyo 5 nin oo kale gudaha dealershipka ayay u soo jabsadeen goobta furayaasha ayuu toos u aaday waxayna habeenkaas soo dhaceen ilaa 7 gaari oo cusub 7 gaari mid kamid ah ayaa shil galay booliska ayaa imaaday isla markaana waxa la qabtay ninkii gaariga waday booliskana waxay ogaadeen in gaarigan la soo xaday ninkii darawalka ahaana xabsiga ayaa la dhigay si loo weydiiyo su'aalo ku saabsan gaarigan uu soo xaday baaritaan iyo su'aalo weydiin kadib ninkan wuxuu sheegay dadka la shaqeeyo waxaana la soo qabtay Lopez iyo kooxda kale la shaqeynaysay laakiin ilaa hadda booliska ma aysan ogaan ninka ka dambeeyo xatooyada gaariyaashan oo ah Min Ching booliska waxay sidoo kale ogaadeen in Dean uu hawshan lug ku leeyahay maadaama uu dambiyo hore u geystay 15 sano oo xabsi ahna ka soo baxay laakiin si ay gacanta ugu dhigaan ninka ka dambeeyo falkan xatooyada gaariga ah waxay booliska ku heshiiyeen inay dabagal ku sameeyaan Dean si ay gacanta ugu soo dhigaan ama uu ugu sahalo ninka hawshan oo dhan ka dambeeyo oo ah Min Ching laakiin ilaa hadda magaciisa iyo shakhsiyadiisa ma aysan ogaan Min Ching wuxuu ogaaday in dabagal lagu hayo isla markaana shaqada ayuu joojiyay wuxuuna kala diray shaqaalihii warehouse-ka joogay booliskana waxay imaadeen warehouse-ka oo cidlo ah oo aysan cidna joogin muddo 6 bilood ah ayaa sidan loo kala aamusnaa booliskana waxa ku adkaatay soo qabashada Min Ching Dean waxa soo wacay Min Ching wuxuuna u sheegay inuu soo laabtay 6 bilood kadib ayna shaqadii dib u bilaabi doonaan wuxuu sidoo kale u sii sheegay inuu hadda hayo deal $200,000 laakiin Min Ching wuxuu la socday oo ogaa in taleefanada ee booliska dhageysanayaan wuxuuna u sheegay isla markii Dean in taleefan nambarkaas uu bedelo oo mid cusub uu qaato Min Ching asagoo is ilaalinayo mar walba oo uu waco Dean taleefanka ayuu iska bedeli jiray lambar cusub ayuuna qaadan jiray booliskana way ku adkaatay in ay gacanta ku soo dhigaan maadaama uu isticmaalayo nambaro kala duwan ayna adag tahay in la soo helo meesha uu joogo laakiin hadda booliska wada ayaa u furmanaysa oo ah khalad uu sameeyay Dean
taleefan iyo number cusub ayuu qaatay laakiin mar walba wuxuu wici jiray gabadha saaxiibadiis ah meeshaasna booliska fursad ayay ka heleen oo waxay bilaabeen inay dhageystaan gabadhan cidda soo waceysay cidda ay la hadlayso meeshaasna waxay ka dhex heleen Dean haddana way sii dabagaleen lambarkaas waxaana ugu dambeyntii heleen wada sheekaysiga ay ku wada sheekaysanayaan Dean iyo Min Ching wuxuu Dean ku casuumay maqaayad Chinese ah oo magaalada ku taalo si ay meeshaas uga wada sheekaystaan shaqada inay dib u soo celiyaan booliskana hadda way la socdaan kulankaas maqaayadaasna waxay u soo direen askari dharcad ah oo indha yar si uu u ogaado waxa ay ku wada sheekaysanayaan askarigan wuxuu soo fadhiistay miis u dhow meesha ay ku wada sheekaysanayaan Min Ching iyo Dean si uu u dhageysto waxa ay sheegayaan waxay maalinkaas ka wada hadleen inay furayaan bakhaar cusub si ay shaqada dib ugu soo celiyaan booliskana waxay soo ogaadeen meesha ay ka furayaan warehouse-ka booliska waxay baadigoob ku hayaan gaariyaashan oo ninkan xado meesha uu geeyo iyo waxa lagu sameeyo warehouse-ka ay furteen ayay booliska kor kala socdeen waxayna GPS ku dhajiyeen gaariyaasha waaweyn ee taraaga ee ka qaado gaariyaasha la soo xaday warehouse-kan si loo ogaado gaariyaashan meesha loo wado Min Chingna shaqadii uu sii hormariyay waliba wuxuu sii shaqaaleysiiyay dad aad u fara badan waxayna bilaabeen inay hadda beegsadaan oo gaariyaasha ay ka soo xadaan garaashyada waxay la heshiinayaan watchman-ka ama askariga ilaaliya garaashka habeenkii lacag ay siinayaan gaarigana meeshaas ay ka soo xadayaan booliska hadda waxay ogaadeen hawsha meesha ka socoto iyo gaariyaasha in la geeyo China meeshaasna dib loogu iibiyo waxay ugu dambeyntii gudaha u galeen warehouse-ka meeshaasna waxaa lagu soo qabtay shaqaalihii laakiin maalinkaas ma uusan joogin Min Ching habeenimo asagoo gurigiisa ka sii baxsanaya ayay booliska soo qabteen waxayna ogaadeen inuu ahaa sargaal Chinese ah oo Mareykanka ku soo galay qaab sharci darro ah maxkamaddana waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ah meeshaas ayuu noogu eg yahay muuqaalkeena haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalada sidaan oo kale ahna haddii aad ka hesho muuqaalka like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay